hargeysa shacab careysan ayaa gawaari badan waxay isugu daadiyeen muraayadihii iyadoona wadooyinka halkaas dab qabadsiiyay cagihii misna taayeeradii yiilay iyagoo oo waliba ka careysan siyaasi ka tirsan xisbiyada mucaaradka oo lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee Cigaal waxaana wararku ay sheegayaan in xaalad kacsanaan ay ka taagan tahay wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada muuqaalada iyo sawirada halkaas ka imaanaya ayaana muujinaya dhagxaan waaweyn iyo dab xoogan oo lagu dhaxshiday wadooyinka waaweyn ee caasimadda Hargeysa iyadoo dhinaca kale shacab careysan lagu kala eriyayo rasaasta nool waxaana jira in xisbi kamid ah kuwa mucaaradka ee Somaliland wakiil u qaabilsanaa qaaradda Yurub uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee dhinaca iyo Hargeysa gaar ahaan Cigaal waxaana la sheegay in markii uu soo degay kadib xabsiga ay u taxaabeen hay-adaha ammaanka iyadoona xilligaas wixii ka dambeeyay xarigiisa ay bilowdeen mudaaharaadyaddan oo afaafka hore ee garoonka ay ka dhigayeen shacab tiro badan oo careysan isla markaana muujinayay inay aad uga xun yihiin xabsiga loo taxaabay ninkaasi ama siyaasigaasi oo magaciisa lagu sheegay Cusmaan Cumar Dool oo kamid ahaa wakiilada xisbiga wadani ee qaaradda Yurub iyadoo sidoo kalena dhinaca uu ka hadlay ama xarigaasi uu ka hadlay suldaanka guud ee Somaliland waxaana uu sheegay in muddo 24 saac gudahood wixii ku siman hadii la soo deyn waayo wixii dhaca ay dusha saaran doonto xukuumadda uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi waa sida uu sheegay ehelka siyaasiga la xiray ee Cusmaan Cumar Dool ayaa dhankooda warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen in ninkan loo xiray aanooyin qabiil oo maalmihii ugu dambeeyay xukuumadda Somaliland ay dadka u xirxireysay laakiin aysan dhici doonin in wax ka badan 24 saac uu jeel ku jiro misna xabsiga uu ku sii sugnaado mudaaharaadyada ayaa u muuqda kuwa la dejiyay oo xilligan wadooyinka waxaa lagu arkayaa dadka qaar booliiska ayaana adeegsaday rasaasta nool oo dadka qaarkiis waxaa la soo warinayaa inay isbuurteen oo dhaawacyo ay jiraan qaarkoodna loo qaaday xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha magaalada Hargeysa ee Somaliland sidoo kale qaarkood ayaa la arkayaa sawiradu dad careysan oo wadooyinka inta kursi ay soo qaateen dhigtay sidoo kalena gacmahooda isdul saaray taasi oo ka dhigan in wadooyinka guud ahaanba ay xiran yihiin sidoo kalena aanu jirin isku socodka dadka iyo gaadiidka ilaa laga soo daayo siyaasigaas Cusmaan Cumar Dool lagu magacaabo oo Hargeysa ay ku xireen hay-adaha ammaanka Somaliland wali kama aysan hadlin xukuumadda Muuse Biixi waxaase la filayaa in saacadaha soo socda ay ka hadlaan xisbiga wadanina isla sidaasi oo kale isagana kama uusan hadlin xariga loo geystay wakiilkan u qaabilsan qaaradda Yurub kana soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee Cigaal wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaaye Somaliland waxa xilligan ka socda ololihii doorasho ee ugu dambeeyay xisbi kastaana waxa uu isku dayayaa inuu awoodiisa siyaasadeed la soo baxo iyo taageeradiisa shacab maadaama Hargeysa ay tahay caasimadda ugu weyn ee ay doorashadu ka dhacayso iyo gobolada iyadoona ay jiraan siyaasiyiinta saameynta leh in xukuumadda xilliganba ay sii beegsanayso si aysan far u dhaqaajin wuxuu ku soo kordhaa barnaamijyadeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa